هيا ومغليسان فولا قارقة كما جمادي فولا قارقة فولا شوف على الملاي مغلية هدي هيستا مغليسان هلكا يقول سوقرا garanaya magabala buriskan garanaya gayfane asrufkan garanaya nabad sugida gamadidday baan garanaya واتش الرعد والله anna gabsanaye inkasta aan gabarahay وجوار وحيستا قادم ودka saaraya رجينا ولا لاي rasastan gardadsanaya باركتان وهبلي صوماليات دغال garab joogsanaya فولا قارقة anna gabsanaye inkasta aan gabarahay hubkan وهبلي صوماليات يجيسيتا هانشري ما هاكو هذا كذا هبلي صوماليات فولا قارقة هاي برنامج الشرقية قاسية ورمو هذا الجيش ورمو يجيش الثاني يجيش يستوريا ولا جيسك أفريقيا كم جمادي جيسك أفريقيا كم جمادي والله مو جمادي الصومالي بانكرانيا قلبت دمقنينا يقصتان كرانيا على الشهر قارية صوت فولا حاب نهجي قاري ورقاقة قاري فولا بانكرانيا قلبت دمقنينا يقصتان كرانيا garanaya nabad sugida gamadidday baan garanaya ishkooda xoogan garanaya magabala buriskan garanaya gayfane asluubkan garanaya nabad sugida gamadidday baan garanaya عجيب شهر قرية وقبل hubkan wadka saaraya rasastan gardadsanaya وروم 7 قبلها رصاص عانها عيدنا dagaal garab joogsanaya فجأة قرب شوكسنيا بالله هو هذا الشوارع حموم فيرسة anna gabsanaye inkasta aan gabarahay hubkan wadka saaraya قبلي بعد يلا قول سيدة رجعيان جوابها دجالك قرب شوكسنايا هرتوين سلام الدمان شعبك الصوماليات ولا لها ومد الصوماليات ميركز شوكتان هرتو حين لي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انت هذا بدي waxaan caaw u soo galay meeshan inaan ummadda Soomaali horta alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh rabbiga ummadda dhalinyarada Soomaaliyeed garansiiyay in dadka Soomaaliyeed walaalayihiin wixii aan intaasoo sano aan u soo qaylinayay halka uga soo qaylinayay ee ku aflagaadeynayay la ku caayay ee dhammaan wadaniinta Soomaaliyeed ugu aflagaadeynay hadii maanta kuwii qabyaaladda lagu indhatiray ay aqli yeesheen oo ay wax garteen ku dhaleecayn maayo waa ku hambalyeynaya
caawa aniga kuwaas agteeda waxay ka yihiin geesiyiin bay ka yihiin waxay ka yihiin dhalinyaro sharaf leh haddaanu shalay haysanay oo annagu ismaagaynay oo aanu kala safnayn oo qolana qarannimo iyo dawladnimo raadinaysay qolana qabiil iyo qolo u ordaysay maanta waanu midaysannahay social media dhalinyartii Soomaaliyeed ku jirtay maanta way midaysan yihiin mid kasta oo wanaag sameeyana halkaas uga hambalyeynaya guud ahaan dhammaantood dhalinyarta Soomaaliyeed cid kasto aan anagu ishaynay oo aan shakhsiyan ishaynay aniga cafis bay iga tahay mar haddii shisheeye meesha soo galo oo Oromo soo gashay oo Abyssinia soo gashay oo Ethiopia soo gashay aniga iyo kii aanu shalay ishaysanay waanu midaysannahay mid quraanuna waxaanu nahay ehel wada dhashay walaalaanu nahay wax naga dhaxeeya haba yaraatee ma jirto social media dhalinyartii aanu isku haynay aan walaalaha ahayn ee aanu rabnay in aanu raahno walaalayaal sidana saxan war sidana sax ah war qarannimadu hadday maanta nala garteen hadday maanta cadowgii fahmeen hadday maanta fahmeen dhalinyartii social media ka caytamaysay ee aanu habeen iyo maalin isku haysanay hadday maanta wax nala fahmeen hadday maanta cadowgii nala garteen hadday maanta garabkayga taagan yihiin falxamdulillaah baanu leenahay ilaahay baa mahad iska leh waanu soo dhaweynaynaa waanu ku faraxsannahay waliba anigu khaasatan wallaahi dhalinyaro badan oo social media ku jirta oo nin dhalinyaro ah oo Faransiiska joogo engineer Amir la yiraahdo Facebook ku soo gala oo dadka aanu iskugu karnayn kamid aha aad iyo aad baan caaw u bogaadinaya salaam gobonnimo leh oo sharaf leh oo dadnimo leh oo raganimo leh ayaan halka u marinaya caaw waxaan leeyahay walaalkayo wixii aanu ka dagaalamayno haddaad maanta nala garatay alxamdulilaahi rabbil caalamiin aniga cafis baad iga tahay wax allaale iyo wax aan ku haysto iyo wax aan ku qabaa haba yaraatee ma jirto horena waxba kugumaan qabin ee wax saxiidun baan anigu ujeedkaygu ahaa balse maanta meeshii aad joogtay haddaad maanta intaad ka soo degtay aad garabkayga taagantay aad baan kugu salaamaya aad baan kugu hambalyeynaya ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay kuwa wali meeshii dhalinyartan maanta Soomaalinimadii qarannimada ka hadda meeshii ay ka soo guurtay kuwa dib ugu guuray waxaad ku quus qaadataan oo weydiisaan dhalinyarada maanta engineer Amir ugu horeeyo weydiiya isaga idin shaxda isaga idin digaya isaga idin sharaxaya isaga idin tusaya labada dhinaca uu taagnaa iyo dhinaca maanta tagay ka macaan isaga idin tusaya indahaygan ku daawaday oo cid igama sheekaynayso isagoo nin Orom ah intuu u soo galay live-ka isagoo markaa qabiil caaya qabiilada Soomaali kamid ah haysta uu ku yiri Orom baa tahay oo Oromaynu isla nahay oo dir baynu isla nahay oo dir waa Oromo dir oo qabiil Soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo badan oo dad Soomaaliyeed ah ayaan daawanay engineer Amir wixii ka dhacayna ninka engineer Amir labadiisa indhood ilma isku soo taagtay ilmo inuu ooyo ayuu ku sigtay ilaahay baana mahad iska leh inta soo socotana waa soo dhaweynayna inta maqanay wali qabiyaaladii ku maqan waxaan leenahay caayimayno maagmayne ilaahay ha soo hadayaan waxa ay soo haray Xabashi Abyssinia iyo Ethiopian iyo Oromo horta halka caaw waxaan rabaa inaan intaan barnaamijka guda gelin inaan halka baaq u mariyo magaalooyinka Hargeysa iyo Boosaaso iyo Garowe iyo Gaalkacyo iyo Burco magaalooyinka Xabashida ugu badan ku nooshahay way waliba Boosaaso iyo Hargeysa waa labada magaalo ay ugu badan yihiin Xabashidu waxaan leeyahay duq magaalo haduu yahay iyo gudoomiye gobol haduu yahay iyo shacab haduu yahay iyo maamul haduu yahay yaan loo kala harin Oromo yaan loo kala harine waxa weeye gawaari ha lagu soo guro haddayna laayaan hala laayo haddayna suqaariyaan hala suqaariyo dadkeeni Soomaaliyeed ayay doonayaan inay laayaan dadka reer Puntland mid baan oranay iyo dadka reer Somaliland raxmadda nicida ay ku jirta anu garar maayo meel idin ka tagin fuleynimo inay idin ka tahay oo aad baqaysaan iyo waxaan kala garan waayay in damiir xumo ay idin ka tahay meesha idin dhigtay war qofkii ku dila oo aan islaamnimo kugu dayn oo walaalnimo kugu dayn oo afrikaanimo kugu dayn oo waxa weeye aan kugu dayn darisnimo kugu dayn adiguna waxaad ku daysaa waa daalinimo ninka gabdhaha Soomaaliyeed ku kufsanaya baabili iyo mooyaaliye inta ka shishaysa
ku kufsanaya gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed laynaya wuxuu aniga boosaasay igu fadhiyaa oo suweyta igu jooga dulmi baan u arkaa haddii maamulku wax ka qaban waayo arrinka oo dadka gawaari inta lagu guro neelka daad gureen waayo oo maamulka Soomaaliland wax ka qaban waayo waxaad ogaanaysaa shacabkayga Soomaaliyeed dayaha fudud inaanu halganka gelinayno oo dadkaan ay gacan wax ka qabanayaan dad la dilay dad la dilo qof la diluu leeyahay wuxuu yiri siduu ku galay haddaan loo gelin siduu ku galay haddaan loo gelin siduu ku garan war aniga oramka igu laynaya maanta jijiga soo weeraray oo waxa weeye doonaya Soomaali galbeed inay qabsadaan oo dadkii Soomaaliyeed waxa leeyna ogaaday Soomaaliyeed qabiyaaladeenu heerka marayso oramadu horta af Soomaaliga taqaan halka qaar oramaa baa ku jira laakiin ballan Ilaahay waxaan ku galay meeradan anigaas hudheelkan aniga ana shitay oram halkaas inaanu igu jirin baa ballana oram af Soomaaliga yaqaan waa wada Maxamed iyo Shariif iyo Bashiir iyo Saciid iyo Liibaan bay la wada baxaan halkaana iguma jiri doonaan aniga halka aniga iguma jiri doonaan oromo aniga halka iguma jiri doonto page aan leeyahayna orom wallahi baanu comment iga soo qori karin bal iska daayay oromada taageersan baan blog saaray sababtoo hudheelkan aniga iska leh wax aan Soomaali ahayna kuma jirayaan ninkii Soomaali diida jiritaankeeda anigana jiritaankaygu diiday eegi umada Soomaaliyeed horta Cabdi Ilay uu guuleystay waa landheere dhalay oo aan taageersanahay wixii aniga iyo Cabdi Ilay naga dhaxeeya Soomaali gudaheeda ka dhaxeeya anaga naga dhaxeeya wixii aniga iyo Cabdi Ilay iyo Soomaali galbeed ka dhaxeeya Soomaali bay ka dhaxeeya laakiin oromo markay damacdo inay Cabdi Ilay iyo Soomaali galbeed gacanta ku dhigto Cabdi Ilay waa walaalkay Cabdi Ilay waa nin Soomaaliya Cabdi Ilay iyo ciidanka Liu Boris waa Soomaali adeer maalinba meel bay joogtaa waxa la hilba aan isku soo ahayn la iskuma saafabay Soomaalidu kuma maada inoo sheer garay barnaamijku gaarsiya kuwa oromada xayawaanka ah ee af Soomaaligi baratay ee bilaa dhaqanka ee boosaaso ku nool waxaan ka xumahay oo injineer Amiir aad iyo aad aan ugu xumahay ninkii la hadlayay injineer Amiir ee lahaa boosaasan jooga inuu yiraahdo boosaasan jooga baan ka xumahay caaw nin orom ah oo daalin dhalay inuu injineer Amiir oo nin Soomaali ah ku yiraahdo dalka Soomaaliyeed oo dhan baanu qabsanaynaa boosaasana uu joogo oo yiraahdo boosaasan jooga wuxuu yiri ninkii jira cadaab geeray kaday inay waxaasi dhacaanba nimanka fashilmay ee siyaasadii ku fashilmay ee taalimiinta ee maamul goboleedadan haysta ayaa noo keenay Cabdi Faaruq Kowkay sababtoo ah oromo maanta boosaaso iyagoo jooga ma dheheen dalka Soomaaliyeed baanu qabsanaynaa eegi garashadii baa tagtay oo damiirkii baa dadkan dhintay oo aqligeennii baa bari hore guuray oo reernimo iyo qabyaalad iyo reernimaynu soo haysanaa dusheennana waa la marayaa oo isheenna la dayayaa oo garashadeena la tijaabinaya oo damiirkeena la tuujinaya oo waxa la rabaa in saaxadan inay ka saaro war adduunyada Ilaahaygi wuxuu ninkii hadlaba hablaha la hadlee huluunbana ma sortaaga huluunbana ma sortaaga war ninkii hadle baa aniga idamci warani Tigreey bay damci waayay oromay oo Axmaar bay damci waayay oromay oo xabashi oo dhan bay damci weyday oromoy adigoo oromo ah oo adiga iyo hooyada iyo aabaha iyo naagtaada iyo caruurtaada iyo dameerkaaga aad hal buul degantiin hal buul baa lagu xireen jiray barigii Mingista iyo Hayle Salaase iyo ninkii liyaado Mililikh iyo aad hal buul baa leedku xireen jiray faantada dameeraha cuni jirteen beeraha leedku falan jiray sidee anigoo nin Soomaali ah oo Ilaahay Soomaaliga dhaliyo oo geesi ah oo abasiin iyada ku guumeysata Etoobiyaanka ku guumeystay ninkii 77 Addis Ababa qabsaday baan hayo ninkii 77 Addis Ababa qabsaday baan hayo ninkii ku karbaashi jiray ee kuwii adigoo ku karbaashay ninkii karbaashay baan Cabdi Ilayna waa saaxiib al-xigma wal aqli way waa uqul mishinka ee la damacsanaayeen wuuba ka badiyayba sababtoo ah intuus casilay bal farshaxanka uu ninkaas la ciyaaray Soomaali siyaasad iyo aqli hadaanu anagu isku jeedna hadaanu iska jeesano anagu oo adduunka ku jeesano wallahi adduunkana ay qabsaneen aqliga uu la ciyaaray markuu arkay in lagu soo socdo oromo soo socoto intuu is casilay ayuu golihii baarlamaanka nin madaxweynaha dhexgay markaas aqlabiyad lagu doortay maanta Abi Ahmed baan casili karin ninka haysta DDS ee Soomaali galbeed ka taliya ma casili karo nidaamkan iyo sharciganna waa sharci ay digtaan ninkii baqtiyay ee malas uu dhigay waana dastuur ku qoran
xabashidu ay qoratay kaasaana kan tigreega ay isku xukmaan ayaa Soomaali galab sida waxa la yiri sidoo kuula yaal ayaa loola yaala kaasaa lagu xukumaya mana casili karaan waxna ma sabab Abiy Ahmedna maanta wuxuu yeeray Ahmed Madoobe wuxuu yeeray xildhibaano Soomaaliyeed oo dawladda Soomaaliya ku jira wuxuu yeeray dadkii wax garadka ahaa ee Soomaaliyeed wuxuu yiri xaaladii faray ka baxday wallahi warkaan idin sheegaya waa xaqiiqo wax allaali waxaan qaban karaana ma jirto niman yahow talaan u baahanahay Abiy Ahmed wuu fashilmay waa orom la guumaysan jiray oo madaxa laga taagnaan jiray oo miskiin ah oo oromo ah oo uraya oo aan sharaf iyo karaamo toona lahayn oo aan damiir lahayn oo aan diin haysan oo diinta la xitaa laga bedelay oromo soo moogid oromo muslim bayaan jid diinta laga bedelay war dadkani oromadu miyaan ahayn dadkii Soomaali abow loo oran jiray bal aniga adduunka Ilaahay wuxuu yiri Sayyid Abdullah Xasan in leega baxay waxa lagu garan waayay yamyam iyo qadaad weyn baa leega taaglay yamyam iyo qadaad weyn baa leega taaglay Abu Sayyid Abdullah Xasan war in adduunkani roogmaday war Soomaali abow dadkan u bixinay miyaan ahayn war dadkii aan alifbeetada siinay miyaan ahayn afkay ku hadlayaan maanta Soomaali horta hala yaabin hadaa artaan Oromo af Soomaaliga taqaan alifbeetada ay ku hadlaan yaale ma taqaana waa alifbeetadii Soomaaliyeed weey waa ba ta ja ha kha da ra sa sha da a ga fa qa ka la ma na wa ha ya weey waa alifbeetadeenni waxay ku hadlaan oo af Soomaali ka dhigtaan aramo af Oromo afaacirtay waa af Soomaaligii oo la jijibiyay oo la nasakhay weey nimankani lahjad male oo luuqad male oo af male alifbeetadeenni bay haystaan Soomaali abow waa la oran jiray war goorma waxa la goorma saala degto dhagax sabeey goorma adduunkani sida u rogmaday goorma anaga oromo nyaaw ah oo aan ku xabashidii gumaysan jiray aanu hilibka ceedin siinay war anaga goormay oromo anaga goormay na haweysan jiray oromo goormay nin Soomaaliyeed nin oromay la hadli jiray adduunkani ma adduun madaxa loo rogayba ma qiyaamihii baa soo dhow ma oromo Soomaali damci jirtay war Ahmed Guray nin Soomaaliyeed buu ahaa Ahmed Ibrahim Al-Qasi nin Soomaaliyeed buu ahaa ninkii xabashi iyo Abbasiiniya hilibka ceerin siiyay wuxuu ahaa nin Soomaaliya oromo xagee joogtay waaga oromo goormay dad ahay oromo miyaan ahayn kuwii tuugsan jiray oromo miyaan ahayn kuwii liitay oromo miyaan ahayn kuwii bilaa diinta ahaa dir maxaa sharafta iyo karaamada looga qaaday dir miyaan ahayn boqortooyadii Soomaaliyeed miyaanay ahayn boqortooyadii Soomaaliyeed miyaan doombira diri ka dhalan gabadha direed wiilka ay dhasho ee Soomaaliga ah cid is hortaagtay ma jirto wiilka direed cid is hortaag goorma dir goormay dir oromo noqoto oromo iyo dir maxaa oo dir oo boqortooyo ah loo bahdilay bal oromku dhalay Abiy Ahmed ee aqliyadiisa keenay wuxuu sii Soomaalidu qabyaalad bay soo haystaan waa dad isnaacib oo qabyaalad isu naab inoo shargaray barnaamijka maxaa gacmayd haysta oromada af Soomaaliga taqaanay Abiy Ahmed iyo ninka Jawhar labadaba af Soomaaliga yaqaan sababtoo ah luqad kale oo maleba luqad kale ay leeyihiin ba ma jirto af Soomaali bay ku hadlaan sababtoo ah alifbeetadii bay haystaan baanaaba alifbeetada u dhigay dir oo waxa way qabaa'ilada Soomaaliyeed kamid ah oo qabiil boqortooyo sharaf badana oo karaamada goormay oromo noqotay Abiy Ahmed aqligiisa wuxuu siiri dadka Soomaaliyeed qabyaalad waa kuwan isu haysto is cunayeen ka faa'iideyso oo waxa tiraahdaa ya aqli baay wuxuu yiri hooy ma dabeecadaada amaanad ugu dageysaa ma jirkay damqanayaan kugu oolan deeqay oromo wuxuu yiri waxa tiraahdaa dir baanu nahayo dir baynu isla nahay waa aqliyada oromada weeye ay rabaan dalka Soomaaliyeed inay ku qabsadaan war oromay waxana qabsan waayay Tigre waxana qabsan waayay xabashi waxana qabsan waayay kuwii boqolaalka sano adiga ku soo talinayay oo adiga iyo hooyadaaba rukuubka ka dhigan jiray oo aabaha dusha ka raran jiray ayaana qabsan kari waayay adigoo oromo ah oo ad bilaa nolol ah oo aan maydhan oo bilaa diin oo bilaa damiir ah oo faantada dameeraha cuna oo adiga iyo dameerka isku si leedin fuulo leed rukuubsado sidee anaga noo haweysan kartaa kuwa boosaaso joogana ballan iyo ahadi waxa aabaan ku in ay had galay in laga soo saaro
oo kuwa hargeysa laga soo saaro oo Soomaali inay mid tahay Oromoy ogaada oo Oromoy waxaad og 4 milyan baan nahay yaana xisaabiyay been iyo huuhaabad ka sheekaysan wallahi Soomaali galbeed inta ku nool baa idinka badan haddaad dad leedihiin wuxuu yiri mala waxaad u tamar leeyay isaga isku taagila haddaad tira haysaan Oromoy oo aad tayo leedihiin Tigray oo 4 milyan idima guumeysteen oo idinkii awooyaashin dusha kama saaraadeen wallahi Soomaali galbeed inta joogta inaa ciidina idinku imanay kuwa Soomaali galbeed joogaan soo hubaynayna oo hub soo siinayna oo maamul goboleedada dhan baanu midaynayna oo Soomaali oo dhan wallahi sidiini Soomaali abow baad ku soo noqonaysaan kaba noo qaadi jirteen oo way adoonsan jireen oo adoon baad noo ahaydeen goor ma dad noqoteen Abi Ahmed waa wali waa saxaabi la soo diray Abdi Ilay baa wali Ilaahay soo diray oo karaamaysan marka Oromo marka loo eego Abdi Ilay waa wali karaamaysan way dalkana Soomaali baa iska leh Oromo uraysoy qarbuunay nijaas xaaraan lagu dalacay حاران نجاس لو طلعي قرشنا مليهدين عقلنا مليهدين تمرنا مليهدين دميرنا مليهدين لكن لو أنا قلنا ماشى اللي يكون بفتون ضد كانت وطن وحوي قريها الله بحي دلوميديد حب أرماد الله صعدنا حلي والريارهن عقليين قرشدين يدم سكوير بالله هيا كوي درنا بتشوي با سكوير رجع هيا أرماد ساو قبله سوماليات وحوي درنا بكوك سنين وأي كل يوم يلي لاو ورباب بريمو يا روح كسمين يلي لاو ورقبل الله ليبان وح كسمين يلي لو قاد وروح يلي لاو أرمو دبعت ساعة أرمو وراني هو أدون كني وبأدون فوقنا وإن أرمو كنت هذا الصومالي بانحك وندير در بانحك وردر هنا عيبيننا در شرفتها كقادنا در وادت كرامي صن وشرف له أنا ولا له يجين أنا يشعل أنا إسكودية أنا إسكود عانا دلخنا أنا وضله ميل الله عليه ميل أنا سوق شان أرمو يوح عين ولاجنو حتى الدين بان نجد حي صوتها دين بما هيستام دين عاد هيستان هذا الدين لدهين قفك مسلم كا إلا جوميستو وكحيجا دمشق كحيجا إلهي بان القرآن كسكوش شيء أحاديث النبي قالوا كوش شيء عليه الصلاة والسلام دين تنا بنين سقفكو إنه كوش هذا نيجي مال كيسا ينفتيسا يرهير كيسا كوسو ويرنا هادو سكعلن وينو إنه ناري هذا كل بتنا هلا جنتاي قار ما سكعني شتين حبشي أرمو قار ما تجري سكعني شتين إذا كي ناجي هنا وإذا كوسن شرين هو يمكن بهرتي إنه كوسن شرين قار ما أرمو سكعني قار ما ضد نقطتين قار ما ضح نقطتين هدنا حبشي بقى فترة سايد كسر ريحيسا وانو أجنهي تكريه بين كل عين عد كلايدا كل عين واحد نوص عطان ذلك الحتة صومالي ضمع إيدين كماها هذا ديك واحد ضمعي كرتان واحد من بهالله واحد ضمعي وتكريه يا حبشيوي وأديك ساعدك سنس صوبته ألف بيتضي يدون كسيني في صومالي جيجا أفكي جيبا تقال ليسا وحوي أنا جوا سكاي كسيني سا مقالوين كي وأنا كوفا صحني إسلامي ما نكوجود ديني مسلمي ما نكوجود ديني جوميس قالوا جوميسني أنا كوجود ديني أنت بتصرف ما أنت واحد مرة يسألنا ترى هذا أرم أو بوساسة شوجا إن ترى صومالي قلبي بوساساني أسكله لكن هو واحد أنا جاي أركتوي وواحد دمير حميد الصوماليات كأركتوي وواحد كأركتي قبيلات قرن كطالين ماذا أنو هبين إيمان أمة الصوماليات وقديني واحد كأركتوي ما أنت عيساهن الدبادة كسوجليس وتكون لين يسوي وأنا ولا راح يوي وأنا ضد الصوماليات كوا در دب كل لين يسوي درت ما أنت حراني هاي أفك كوسو قادسة درت أفك كوسو قادسة وكوا در دب كل لين يسوي وكوا قبله هذا كوسن يسوي وكوا هبين إيمان وحوي مقالة ورير يسوي در دب ما هو يلا على أرمو در دب ما أرم ما إسكله مش الصومالي بالله صومالي بإسكله صومالي بإسكله دش أرمض والله بأنا هلكن يقول شيء كريم بالله يطلع كذي حارنت وضع الشيء هل كان أنا أرم يقول مشريو والله بلوك بلتقي بالله يطلع أرم أنا هل كان يقول والله بوصل سنة شوق معي وهرجسة شوق معي دنيرت الصوماليات السوشيال ميديا كهذا الشيء أنت عاقل قالوا حالي ورأينو ميل وسوا وده جسنو أو هبين مالين سيدا تشينك هالولا دجالم أورم سيدا تشينك هالولا دجالم أو سيدا الشيطان كهالون نارو
oo meel allaaliya meeshii oromo lagu arka baan ku yidhi nabarka iyo gacanta weynaysa saarnaataan oo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan oo waxaan arkayay hablo soomaaliyeed oo magaalada boosaaso xijaaban oo qaylinayo leh oromaa meel walba noo taagan oo carruurtii naga fadaraysay oo meel shiisha balaysa u furtay oo meel iyagoo macatabkii sitay magaalada booso wareegayaan waxaan leeyahay maamulka meesha ka jira iyo duqa magaalada boosaaso cabdisalaam bashiir iyo inta waxgaradka ee boosaaso iyo cuqaasha iyo wadaadada waxaan leeyahay sida ugu dhaqsaha badan magaalada boosaaso oromada ha looga saaro sababtoo wax naga dhaxeeya oromo annaga haba yaraatee ma jiraan aan xumaan iyo dagaal iyo dhiig ahayn wax maanta nabad naga dhaxaysaa wallaahi baanay oromo u jirin inta ay ku taagan yihiin Soomaali galbeed oo ay diri dhaba dhibaatada ku hayaan oo ummadda Soomaali galbeed ay madaxa kaga taagan yihiin oo iskagaba taagi karaan oo nin Soomaali waa habeenkii xalay oo tagay in nin oromi madaxa iskaga taagay inta ay sansanqanayaan oo xabashi soo dirayso tigreeftada ka soo riixay wax wanaag oo naga dhaxeeya naga ma jirto Soomaalina way israacday oromay ku xisaabtama oo ku seexda oo ku soo toosa barnaamijka sheergareeya oo gaarsiiya xayawaankooda dhalay oromada ah ee bila caqliga ee bila damiirka ay anagana soo hawaysanaya gaarsiiyo barnaamijka sheergareeya meel allaale iyo meeshanu isku aragno oromay dagaal baa inoo dhaxeeya weer cas baan ku yiri mara dhiig leeynu kala furayna wax inoo dhaxeeya haba yarato caloolacad waxaan ahayn mindi daable waxaan ahayn iyo xabad inaga dhaxayso wax wanaago oo ina dhex mari kara wallaahi baana u jirin midna ogaada Soomaali way ka ilbaxday muhibbadii iyo kalkacalkii iyo islaan jacaylkii iyo magaranaysaa qof muslima weeye qof islaama weeye waxa waanu ka ilbaxnay saayiduku waa diideen islaamkii kalabana diidiye maxaa anaga islaamnimada anaga ma gaar baan u leenay adeer ninkiina dila waanu dilayna oo ninkiina xasuuqa waa xasuuqayna oo kiina soo dhaweeyo waa soo dhaweeyna gaal iyo islaan midku doonaha noqdo gaal iyo islaan midku doonaha noqdo dawladda Soomaaliya waxaan leeyahay madaxweyne farmaajo iyo xasan cali khayr iyo dawladda Soomaaliyeed muqdisho ka dhisan waxaan leeyahay adeer reer waa degdeg miiran baa tihiin laakiin anagu waxaan u leenahay Sacuudiga iyo arinta Canada ka dhaxaysa anagu Canada aan la safanahay oo aanu taageersanay maxaa anaga Sacuudiga iyo Canadian isdagaalayna naga galay oo na dhaxgeliyay hadday noqotana Canadian kan la taageersanay oo aanu ayidayna Sacuudiga anaga maxaa noo galay ma qaxooti buu noo soo dhaweeyay ma ummad buu nolol noo siiyay ma dad buu noo badbaadiyay ma gabdhaha ayaga miyaan habeen iimaan Sacuudiga lagu kufsanayn oo waliba cadownimadooda iyo xaasidnimadooda iyo daalinimadooda iyo ilaah ka dheeraashahooda nimanka mariyaha waaweyn intay gabdhaha Soomaaliyeed kufsadaan ayay waliba soo googon jireen marka siinta jawaan ku soo ridaan laamiga soo dhigaan Canada miyay ka dhacdaa wariyaha badbaadiye dadka Soomaaliyeed Canada maanta imisa Soomaaliya baa ku badbaaday oo degan oo ka shaqaysatay oo wax ku baratay oo ku ilmo dhashay oo maanta doonaysa halka dalkoodii dadkoodii uga soo halgamay wiilka Soomaaliga ah ee Soomaaligu dhalay ee laandheeraha ah bi Carabi ka xunta anu waan aqaanaa Carabi waa jalas waa xaasidiin Carabta maanta joogta waa mustacarab waana xaasidiin anu waan ogay waxay ka xun yihiin wiilka Soomaaliga ee wasiirka noqday wasiirka jinsiyadaha iyo wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha ee qaxootiga wiilka noqday wasiirka noqday Soomaaliga bay ka xun yihiin adeer nin Sacuudi wiil Soomaaliya iska daa inuu wasiir noqday wiil Soomaaliya ku badbaaday gabar Soomaaliya ku badbaaday hadaad caawa ii sheegtaan wax wali oo iga xaraan baan ku xaal gol jooga baan bixinay kuwa ku nool dhuumasha ku nooliyeen gabdhaha lagu kufsadaa waa qadaamado gabdhaheenu wajaariyado madaxay kaga istaagaan way caayaan wayna bahdilaan dad inooma yaqaanin carab dhargay baan aqoon carab dhargay maxaad ka taqaanaa hooyoodii abeesooyinka cuni jirtay bay ilaa weene carab dhargay maxaad ka taqaan sheergareeya barnaamijka Canada taageera shacabka Soomaaliyeed Canada taageera oo calanka Canada soo wada saarto xataa Canada aanu taageersan anigu number 1 baan hay Canada taageersan wiilka Soomaaliga ay wasiirka noqday Sacuudiga wasiirka ma noqdo wiil Soomaali hooyo Soomaali kuma badbaado gabar Soomaali kuma badbaado waxa la inoo yaqaanaa adoon Abdul Aswad bi koranay meeda islaamnimadii xaramka iyo Makana iyo Madiinana Ilaahay baa leh
إلهي بأن القرآن كسوق شيء مكة يا مدينة عيد لا يحيجها هي ما تشيله دولتها أود لنا تركيا وكلايد إندونيسيا وطمدا إسلام باكستاني إنديا بالعرها وديدا وخواص هذا يديهن وما ديدي كلام ما نبى قبل كده سعودي ولا صعب شرعي هذا كلام إسلام لماذا السعودي قتال سعودي بقرطوية السعودي إسلام لماذا بشكل كتير إن إسلاميين أيها بشكل كتير أنا يا سعودي هدي الله ترترى يانكو الله سقارنا يو ما مكان مدينة الورر وقال ورر ما سا سعودي يا دولة ما يسيسته ور أنا لكن أنا محمد الشيخ دولة هايستو مدحوينا يرئيس الوزراء كنت أنا يدي الشيخ الناي هذا الرجال أنا ولا مسفنين شعب كصومالية هضانوا النهاي أنا وكندا ولا صفنا هضي نقطه وعير بها هضيت هاي بهذا هاشران هاي والله ما أنت كندا يسعود هذي نقطه أنا كندا تاجري سبب تانكو تاجري أنا وعطيني ضدك يجيب أكون صومالي محمد بكوبت بادي ويكشقيستين ويكوي المدلين وحبي كبرتين وحبي كالنقدين ما أنت ويلك وسيرك جنسيتها أي صعدالك يا أرمها قحوتيجا وأنا الصوماليين أنت صور كيس سوقعتين حاران تمريها ووين الدقاق عنتها عيري حوق دورة ألا كديك بالمغرب ورد الدقاق عنا معي دميو نمكن علوشة وين اللي كانوا مريكن كالدقاق تيجي كمريكن الوسط قلو صومالي بسوقشة مريكن كشقيسة بسوقشة هل قصار له كنا نين أنا وحبق بسنكرين وإربط دون تلا صبيح كرين أياد حورية صومالي وريا صومالي هرت ما هي رعبتي وسير كارمها دماء الصومالية عوضوا باسبور كندي أنا بتسيتها صاحب يا شيخ باسبور كندي أنا بتسيتها مركي لسبع سنة إيه قحوتي يا حي يا كوبت بادي ونرش كوسية عوضوا إلهي كسكو يا كوحكو تري كندا حكو ترتي باسبور كسيتها دولة الصومالية شن وسير إنك بدن باسبورود كنديين كنديان شن وسير إنك بدن أيها كنديان باسبورودين عوضوا دولة دعتك صور جدا واتين ولا شو كسيسي أنيقا وحبايقا مجن كندا إيو سعودي لكن لبدا مركين نقطه كندا تاجيري يا ماكو عوضا هذا يسكب بلابان ماكو عوضا هذا يسكب بلابان ماكو هدي أنا سعودي قاعد تورين با وكفر يصلها با وكو قصيلها هدا أنا بأصور راعن با وكو قصيلها با ساسا وضع والله عربت ميت كودا ساسا وضع والله يقصري بقرطوي برك الدميني أنا جاب قصري يجوال الدميني أنا جاب قصري يجوال الدميني عاصمة يجوال الدميني دلك يجوال الدميني دتك يجوال حسوقي يا وحي تري يا أنا وحي تري يا أنا وحي ترى وحي شجني ما إمارات بوحي تري ما سعودي بوحي تري إسلام نمض ما أفكا فيفا سعودي بلوك بنك صاريا نمعان محمد فيفا سعودي صمورا بلوك بنك صاريا يوم ودالك أنا جاسكله وح أورمي سعودي وتما بعرف كربا أنا قاعد وحي ترتي أنا مركي عاصمة مقدشو شام مدافع الولاد عي ولا ميد اللي بربرني ووسارتها اللي بوبي ووكالتها اللي بوبي وصومالي سيدا هارور كساس جبوديش يعني واحد تري ما سعودي واحد تري ما يا أنا وحي شجني دتك يجوق حينا وحو كدقتي خدامته قبلينا خدامته كدقتي خدامته يعني جاريد بو كدقتي جاريد بو كدقتي إن قل أنتوا كل حدود عربي علون وما تقول كل حد قبلها يكفسني دليرنا شابوك أنت لا لعب حبس لجني وآخر لودري ولا صوت رحيلي أنا يا عرب محا أنا إسلامي مو إسلام بلوك باكل هذا أنا إسلام مو اللي وضيعه ماليزيا وإسلام إندونيسيا وإسلام باكستان وإسلام تركيا وإسلام إسلام أورمادا ما تسلين إسلامي مش شجنيسا سقارنيسا بإسلامي مش شجنيسا هذا المسلم كقف كست إلهي با وقفك مسلم إلهي با مسلم ماذا ودوري قفك قال أنا إلهي كعاسين إلهي با ودوري لكن قال يا مسلم لبضا بإلهي با أمي أنا مسلم بانا هاي لكن هداد إديشو أود يجور عدو أود السقارسو أو أنكو أبيض الدين ويد إسلامي ما كوجود دين ماي إسلامي ما كوجود دين ماي ماذا حن كاجوريا سأدوق ويجود دين ويدي أدوق با
سو إسلامك يجمع الدين وين أنا كوجو دين ماي سيئة مثلها وي siduu kuu galay haddaan loo gelin siduu ku garan wey maalin walba anagu waranay waa taayada la yaaban oo shan qabiil noo kale carab baa san noo kale fariisay lacag dhaqaale nagu bixinaysa sacuudiga kowka oo imaaraad baa kowka dawladda Soomaaliyeed baa la hadlaya idinkan sacuudiga iyo waa dhexdhexaadinayna maxaa dhexdhexaadooda nigaliye kuwa idin kala goynaya dadka idin ku diray maamulada idin ku soo hubaynaya meena carab ahayn maxaa damiirkeedii ka qaaday ra'iisul wasaariye madaxweyne iyo golaha wasiiradu iyo dawladda Soomaaliyeed dawladda aad maanta dhabandabaysaan kuwa lagu haysta meel sacuudiga ahayn kuwa diiday shidaalka inaanu saa ula soo baxno oo raas casayr dekad weyn ka sameeyno oo dekada doonyaha maraakiibta adduunka ee 60% Soomaaliya marabadeeda aanu shidaalka ka iibsano oo adduunka saas wanka barida weyn intaanu shiilo saan u yaa diidan soo sacuudiga maxaa damiirkii war waxaan Soomaalidu wax abaal loo galaa ma wallaahi billaahi tallaahi Soomaalidu waaba ninka dilay aakhiro u diray bay jeceliinba oo ftada si saaftada u ruuxan war ninkii aan ogolayn ninkuu yiri sinaan mayno adna buri sareyntiis sacuudigu noloshaada ma ogola imaaraad nolosheena ma ogola maamul goboleedadan fayriska yaa nagu soo hubaynaya yaa Muuse Shaani iyo Cabdi Faaruq dabada ka wada soo imaaraad iyo sacuudi ma dal islaam weeye qaybta islaamka ay kaga dhigtayba qaybta islaamka war islaamnimada turkigu waa islaam soo cid badiisa galay ma arag yaa ka islaam fiican Erdogan waa aabaha ummadda islaamka weey waa amiirul mu'miniinka maanta nool miyaad aragtay soo cid badiisu raacda Soomaaliya xukuumadda maada wadaantii geeleeda kaafida ayaa geel kale ku dartay eegay taadii teeni baan qaadi laana inaygu waxaan kala fadhinaa daaro hawiye isaaq dir raxaweyn niic qabiilo u kala fadhina maxaa ka galay maxaa adiga ka galay wuxuu yiri maalinta ninkii loo jeedo Allah waxay sameeyad miigin maalintan xawa aroosiyo maxaa xisaabtaba keenay maxoolaad igu leed maxaa inaga galay inaga Turkiga iyo Sacuudi ee Canada iyo Sacuudi saysta maxaa inaga galay maxaa ka khuseeya ma dantaada raacad inuu waxaynu nahay meel lagu ciyaar shax geed shaxda lagu ciyaaramayno waxa iska soo jaraya ma dawladda markaan dhexdhexaadnay Sacuudiga adeer ama hala dhaleeceeyo ama hay waa run gabdhaha waa guumeystaan be ma arab Soomaali soo Sacuudi ma waa guumeystaan kuweennana waa kufsadaan kuwadana waa guumeystaan waa run diintuna dhab kama aha halkaas weeye kalxamaha ma dhaafsana kalxamaha islaamnimada sheegtaan labada kalximood ma dhaafsana kuwii nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay soo baxayaan weeye diintu labadaas ka tahay annagana waxay noo soo direen niman khamiisyadooda inta u soo xireen oo gar waaweyn la baxa oo sunnihii nabiga calayhi salaatu wasalaam intay muujiyaan waa sheekadii Muuse Suudi iyo Laxubaaba ka dhawaa Muuse Suudi waa waxa la yiri barigi macaakiimta iyo shahaadada dirkii nimanka argixisada wax soo galgali jireen baa waxa la yiri niman shahaadada dirra oo qolyahan ay soo dirsadeen baa Muuse Suudi iyo Laxu qabatay baa Muuse Suudi iyo Laxu nin gar weyn buu ahaan jiray waagi hore wuxuu ariga garkaan moodeen ma garkaan moodeen ma aha buu haddaba mid meedii sheega waxaan soo qaadanayaa hadalkii Muuse Suudi iyo Laxu garkaan moodeen ma aha Soomaaliyeed nimanka khamiisada loo soo galiyay ee garka waaweyn la baxa ee caloolaha waaweyn ee afarta gabdhood ee 15 jirada ay guursada ee sanad walba afarta gabdhood fura ee kooraya nafta ku diiday naftaan ku diiday marna nafta raali ka noloshu waa intaaba ee hore iyo gadaal bay inoo riday waxba adeer iyo anaga hunnu iyo sheeka jilicsan iyo wax aan anagana marayn adeer anaga islaamnimada hore nagu soo gaadeen maxay noo qabteen muslim baanu ahayn dad muslim oo walaalahooda aanu ahayn muslim akhi muslim bu ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala qofka qofka kale muslimka waa walaalkii maxay noo qabteen waanu islayna oo wayna laayeen waanu isxasuuqnay oo way isku kaayadireen oo wayna dhaceen oo wayna boobeen oo hadda dahabka ay gurtaan oo buurta nimanka saaraseen la yiraahdo ee Sacuudiga iyo Imaaraadku leeyihiin buuraha qaw iyo waxay ka gurtaan ceelaayo dahabkay way ka gurtaan oo maxay noo qabteen inay isku kaayadiraan muqdisho qarax ayaga ka fuliya iyaga al-shabaab ka sameeyay iyaga noo keenay muqaawino iyaga noo keenay iltixaad
يا نوكني الإسلام يا الإخوان يا نوكني الاعتصام يا نوكني بقول لو تفرق يا نوكني محي نوقتين ما أنت أي أركان قبل فنانة ده وقصلك كوجرته وهيسسه كتبت صور صنيع باي قبت هاي دينته فسحات بوطاي فسق بوطاي ورحياي ونستحي اندوي وكين جامعي وروا حليمه قبادي وروا هبلايه كلوي وروا فيسكوي ور ارياي كتب بلا صبحان ما انت اركان قبر فنانده هيسيسا oo qamshax ku jirta war wax ka waaweyn baa jira adeer wax ka weyn baa jira wax ka weyn baa jira ninkii jira muxuu yahay war waxa daybiisay waxa ka sokeeyaday waxa adeer wax ka weyn baa jira tuugani baa jirta dhac baa jira dal burburay baa jira kufrini baa jirta ummad xasuuqday baa jira fakhri baa jira gaaja jirta dawlad la'aan baa jirta maad ka hadashaan بس الشيكات إنه معتبرين قبطان مربى وطن ودفتان سعودي قال عاك قاعد بين الكقاعتان أنا بخارة وين يفرمسيال وين هسبتال الناس ما يستان يسكولو لعكت أنا يقولتان دولتني ما مربطان سعودي قلنا يديكوا يدي صدري سعودي قلنا يديكوا حاجة سويندك حاجة كوا وش قينيا كوا أنا إثيوبيا وش قيان أو كراليال أو موسى عبد الفارق با كوي لبكا يكون سياسيين تظالمين تا oo aan u soo jeesan doono mar dhow iyagana kurkaan ku gurin kuwana Sacuudiga u shaqeeyaan Imaaraadka oo bil ka qaatan ilaa ayn xagee markan naloo wada anag nolosheeda waxaan ku jiraynaa Sacuudigaanu taageerna Sacuudiga waxaan sala yaabanahay dawladda Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre ay hogaamiyaha ka yihiin iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiiradooda ee kuwii duminayay dawladnimadooda duminayay ee dalkooda duminayay ee aan ogolayn Soomaaliya nabad ka dhacdo ee ila Cabdishakuur iyo Cabdifaariq iyo Muuse Shaani soo hubeynayay ee dekedaha Soomaaliya boobka ugu socday inay maanta kala saftaan Canada oo dhan Canada kan haddayba Sacuudiga ba maqlaanba Sacuudiga wareede Sacuudiga waa run oo Makka iyo Madiina ku taal Makka iyo Madiinana islaamku dhan ba u siban لكن قصري بقرطوية وافين كله وحن إسلام هو أقلين بالغوهية محانا يقلين نك أنا يخصي محانا يقلين أنا يخصي نك دولة النبي بربرينية دولة النبي بربرينية محاد وسيرو يوم مدحويني رئيس الوزراء وتاجرسن واحد نوشة يسأل مركب ما بين بعده دولة النبي مرة بتاعن دولة ساسو اكتحي inaan dawladnimo rabin ee dan kale aad meesha u joogtaan bay noqonaysaa marka ninka ku duminaya aad taageertid de double agency baa tahay marka laba jaal aad tahay laba siyaabad baa u shaqeynaysaa marka saasay noqonaysaa saasaanu idiin arkaynaa dawladay haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed waxaanu idiin arkaynaa inaad laba jaal leedihiin laba waji inaad leedihiin wajina anaga aad nagu qancinaysaan wajina aad ku qancinaysaan nimanka la shaqaysataan taasaanu idiin arkayna aniga ninka hooyaday badbaadiyay ee walaashay badbaadiyay ee walaalkay badbaadiyay ee naadeertay badbaadiyay ee habarwadaagtay badbaadiyay marka sidaa leeyahay ummadda Soomaaliyeed baa aniga hooyaday gabdhaha Soomaaliyeed baan hooyaday iyo walaashay iyo naadeertay iyo habarwadaagtay wada ah kuwa Canada ku nool waa hooyooyin Soomaaliyeed waa gabdho Soomaaliyeed waa dhalinyaro Soomaaliyeed ninkii aniga kuwa ii badbaadiyay ilaahay ka suko ilaahay baa wax badbaadiyay ninkaasaan la safanayaa maxay tiraahdaa Soomaalidu kuugu dhiijiya loogu dhiijiya kuugu dhiijiye baa loogu dhiijiyaa wuxuu yiri bal tijaabi garashada bal tixraa ujeedada xana taaban boogaha taxanaha waqtiga yaal taariikhda baarbaar warnin la tumay bal weydii wuxuu tabay raacde qofku taray wuxuu taray ha ka dhigin barkumataal waa gunnimo taas waa gunnimo eegay wallaahi waa gunnimo waxaan ninka aan bini aadanka u mahad celin ilaahayna uma mahad noqon dawladay bal tijaabi garashada oo bal tixraa ujeedada xana taaban boogaha taxanaha waqtiga yaal taariikhda baarbaar nin la tumay bal weydii wuxuu tabay raacde qofku taray wuxuu taray ha ka dhigin barkumataal ninka tooyo foofsaday hala simin mid taag daran
wakhtigaa istarayo ninba meel ku tuuree hadday taadu wacan tahay nimay turuqday baa jira qof u tahayaa badan sacuudigu wanaag annaga nooma gelin nin la tumay bal weydii wuxuu tabaya raacde dhalinyartii qaxootiga ahayd ee soo qaxday dalkoodii laga soo qaxiyey iyo hooyooyinkii balanbalayay ee Nairobi iyo Kenya iyo Sakaaweynta iyo sawaaxiliga hoos joogay ee fuufuuda loo qaybinayay kuwii qaaday ee nolosha siiyey bal weydii maanta warayso farmaajo iyo khayrow kuwa waraysta waxaad tiraadaan maxay idin qabteen waad aragteen Canada wasiirada maanta cawad ugu horeeyo isagoo qaxootiya oo af dheer caata ah oo qax ah buu Canada galay xaguu wax ku soo bartay xaguu ku guursaday xaguu ku shaqaystay abaal baatiin abaal ma lihidin oo wanaag ma lihidin oo sharaf ma lihidin Soomaaliya oo ninkii idin karbaashka ninkii dabada idin qabta waa taqaan karbaash maanta Sacuudi xun oo daalin ah oo maryo weyn oo digaaga cuna oo bilaadamiir oo gabdhaha iyaga kufsada ninka gabdha war gaal ba ha ahaado ilaahay ba lakum diinukum waliya diin ana qaxootiya ana dalkiisa ugu tagay wuu soo dhaweeyay sharaf iyo karaama u haya dalkayga hadduu yimaadana oo ku soo dhaweynay ilaahay baa la xisaabtamay isagoo gaala buu soo dhaweey kii muslimka ay dilay ka war ka muslimka sheeganaya ee sacuudiga ay aniga dilay ka war kaas muxuu qabtay aniga wuxuu leeyahay walaalkay baa tahay islaam baynu nahay muxuu ii qabtay noloshayda muxuu ii sameeyay tarxiil iyo dil iyo dhaawac iyo kuf subxaanay ma ka faa'iido hal maalin yaa garanaya sacuudi meel oo abaal lagu galay war kuwan hay'adaha wata diinta doonaan baha wataane waxay doonaan baha ku hoos wataane UNICEF iyo adduunka dadkan qaxootiga wax siinaya raashinka u qaybinaya sacuudi maalin meeno yimi raashin meeno qaybi waa maya haddaba Soomaaliyay qiira jabaantan iyo muxubbadan iyo niicdan ay ku jirta ka baxa Oromo iyo Sacuudi iyo Imaaraat cadow bay inoo yihiin meel weynaan uga soo wada jeesana qabiyaaladan iyo qurunkan iyo daalinimadan aanan meel la ku gaarayne salka inaga ridayna waxaan idin sheegayaa Soomaaliyeed in aynu gacmaha isqabsano oo meel uga soo wada jeesano dawladda Soomaaliya waxaan leeyahay ka fiirsada waxa aad oranaysaan annaga wayna dhibaysaa ka fiirsada lib hore ayaa la qaye kicisay taa Soomaalidu lib hore la qaye kicisa ee ka fiir dawladda Soomaaliya ha ka fiirsato tii shalay baan ugu dulqaadan dawladda Soomaaliya ha ka fiirsato Abiy Ahmed bay shalay soo dhaweysay oo war murtiyeed iyo sheekayar oo jilicsan la soo doontay oo maanta dadkayga la leynaya maanta Sacuudiga iyo Canada haddaanay Canada taageerayn ha ka gaabsato shacab haddaan nahay anagu Canada u taageersan caawada haddii lagu bilaabaan TV-ga daawanaya loos baan soo qaadanaya shacab soo shubanaya qasriga Sacuudiga marka la duminaya caadi ma daawanaya bal ka war anuu ninka ku faraxsan baan ahay Sacuudiga haddii dukum daakum laga dhigo intaan Maka iyo Madiina ka ahay Maka iyo Madiina maalinta badeeda la galo ka haygan qaadanay iyo daba jaxay eegay laakiin aniga saacay Sacuudi cadan iyo ilaa beerka been jidda iyo saa hadii loo rusheeyo baan ku oo jiddo dhan dukum daakum laga dhigo waxba igama gelin wax iga galay ma jiraan waa ku raaxaysanaya maanta waxa ku jirtay boqorka qaxootiya allow bayla laga helo boqorka qaxootiya allow banaadir laga helo waa bajeclaan lahaaba anigu boqorka Sacuudiga oo qaxootiya inuu banaadir yimaado waan markaana migration fadhiyo qaybta migration qaxootiga uu fadhiyo ka fadhiisan oran lahaa ka fadhiiso walaalahood Suuriya say u galeen Soomaaliya ogeyn nimanka caloosha waaweyn Sacuudi inta ordabay gabdhaha soo iibsan jireen هذا ولا جميل شوية هذا 5 يوم هذا 6 يوم
gabdhihii Suuriyaanka ahaa ee quruxda badnaa ee Shaamiga ahaa ee waxa weeye islaamka ahaa shan maalmood bay soo haysan jireen shan maalmood هذا ما كويس هذا والله يا عبد الله هذا ما كويس والله يعني حبة ثانية يعني ميت كلام راب كلي قراص شن عشرة هيسن جري شن عشرة ما قبلها صومالية بونا يقولين سياسة نقدر حيسانا ما شفتوا دولة الصومالية هالكاوي كودك دقيسة شعبك الصومالي أفكود أنا وكهل لنا وحلينا دولة الصومالية سعودية هندال نقول تاجرتان تام عليه دوحنا نقول نساء واحد نوع شيء سوا وحكم الجيران دولة نمنا مرة ثانية ديسنتو إذا كي سعودي يقولنا وحان واركينا إنا فيلين كلا وطان تاسن واركينا سببتو نيك الصومالي ديدن إني دكتور سعودي نيك الصومالي ديدن إني دكتور إمارات هذا مركي إمارات سعودي هذا كندا تريه إسرائيل وإسرائيل هدر ما إسرائيل اسكو بلابان إلهو ما عاو إسرائيل اسكو بلابان مو waxaan makay madiina ka hayn anu bari baan ka haybo halka hadii lagu soo qaadanayo boqorkooda aan ku saa loo jarjarayo aniga simaafu afka qalaad wax iga galay baan jirin wax iga khuseeyay baan jirin aniga xilna iga ma saarno dhalinyarta Soomaaliyeedna waxaan leeyahay ee social media qaar baan ku arkay sheekad niica iyo qabyaalad iyo qurun war adeer meesha aad ka hadlaysaan iyo meesha maanta Ethiopian iyo Abyssinia maraysa labay kala tahay kaaga xunay Soomaaliga ah oo bilaadimiirka oo qabyaalada ka sheekaynayo Oromo hadaa raacin waxba ku kordhin maysid oo wallahi baad waxba ugu kordhinin oo waxaad ka faa'iideysaa qurun iyo uskag baad ka faa'iideysaa iyo diin la'aan iyo damiir xumo oo nin isaga iyo awowgi ninka Oromka shan awoowe baa la gumaysanay bal shal awoowe iska daayay boqol awoowe la gumaysanay awowgi waliga xornimo mu arag waxba kuba soo kordhin karto waxna kugu soo kordhin maayo eegi wax uu kugu soo kordhinayaa ma jirto sharaftaada iyo karaamadaada iyo Soomaalinimadaada ha ka tagin Soomaali galbeedna waxaan leeyahay dadka ku nool gacmaha is qabsada Leopolisna waxaan leeyahay waa maanta anu Leopolis baan taageersanahay oo Cabdi Ilay waxaan u aqaanaa Axmed Gureyga Soomaali galbeed caawa soo habeen maaha habeenba meel bay joogtaa haddaan oran jiray daalin weeye haddaan oran jiray tuug weeye haddaan oran jiray dhiigacab weeye haddaan oran jiray dhagarqaba weeye Soomaalida dhexdeeda ahayd waa markay aniga iyo Cabdi Ilay tahay laakiin marka Cabdi Ilay iyo xabashi ay tahay Cabdi Ilay baan baha haday tahay bahdaha jiraan bahaboho haday tahay bahdaha jiraan haday tahay Cabdi Ilay wali weeye يا حبشي هذا تاي عبدي إلي ولي وي عانا بدات شوي خير قبل وي ذهب لا أصلي وي وسيد كي دلك وي أحمد قريق ومد وي والشيخ بشير كي قرني وي وحسن برسميه سنة كوي ومركا أي أرمو يا حبشي أنا أركو جير كلي باع عنك عيا ساسا جير كوك عيا أرمض وعن كل حارك سكسيدي سا حسن برسمه الشيخ حسن برسمها سنة كوية بانكر أورمو وحنا قد حيا دكتور ديكا أنا قد حيا بس إن دكتور ديكا صدرنا كليا يحيري مدنا مدى بقالين إن دويد مدى عندي اللي دي ما صدى منتو من دربان كان توجد كده يجري ضمن كينا ما عندك أفكار يا طيب Oromo uraysa baan oo waxaan ku yiri nolol aan haysano canjeera daafid xitaa aan la siin oo bila nolol ah siday Soomaali war Soomaali soo madaxa kor uma qaadi karaan siday Soomaali yani waa incredible afka qalaad incredible bay dhahay Talyaanu waa wax aan maskaxda ka weyn incredible ووحنا مسكحتك بنادك كوين وي عبدي إلي هادو ضد لايي وضد سومالير لايي إنك مركي تشوكتو وإنو دقرقبي وإنو طالين لكن مركي أي حبشي تهي يا عبدي إلي
iyo new bolis anuu cabdi ilay iyo new bolis baan la safanay runna waa run beenna waa been niic iyo sheeko jilicsan iyo go'aan niica looma baahna adeer cabdi ilay iyo xabashi markay tahay cabdi ilay waa weli ilaahay soo diray midda kale oromo marag bay leeyihiin oromo marag bay leeyihiin waa naagee weeye marag bay leeyihiin dad la soo gumaysan jiray weeye maya nin Soomaali halka nin ee Soomaaliga wuxuu dhigmaa 100,000 oo oromo buu dhigmaa halka nin ee Soomaaliga 100,000 oo oromo buu dhigmaa adeer baryan qaal oromo tahay aduguna blog baa kule macnaagahoodu waa meesha maraya oromadaha blog baa kule naaya naag oromo ay nin oromo atoona anigu halka ay ma soo gali karo blog baa leh af Soomaaliga baad barateen dhaqankayga baad barateen sirtayda baad fahanteen anagii baad qabayladii waxaan isku haysanay haddaba waxaad ogaataan oromoy waxaad raadeen Soomaali kala dila laakiin waad iskaaya raaciseen maanta waa israacsanay maanta Soomaali waa far haddaad shalay daarood iyo hawiye iyo isaaq iyo dir iyo raxaweyn iyo balaabala iyo gabooye iyo jareer iyo banaadiri aad noo kala qaadi jirteen maanta far baanu nahay waanu simannahay gacantaanuna insaarayna wixii annaga dhexdayada ah annaga waxba idinkama gelin annaga naqaasa u dhamisay laakiin adiga Soomaa godkaaga biyo kuugu galeen oromo aakhira lagu dirayaa oromo dadna ma tihid oromoy wax allaale iyo waxaad goysaanna ma jirto FIFA new bolis ma new bolis ma soo new bolis FIFA askarta Soomaali galbeed iyo new boliska FIFA cabdi ilay waliga ummadda Soomaaliyeed FIFA Soomaali galbeed oromo down uraysoy down macadaytoy down meeshaan idinku aragnana suqaarin waxaan hayna ka badhaxayso inaanu dhegta dhiiga idin tarno bal midka oromka alla wuxuu aqal xuma Soomaaliya annaga waxa doonina Soomaalida waa qabsanaynaa Soomaali waa qabsan maxaa qabsataa Soomaali qabsataa futaadu waa Nairobi ka muuqatay ma xagaad ka keentay damiirka waxaan sidan uga hadlayaa Soomaaliga yaqaanintay eegay waxaan anigu nimankan de luqad kale ma lehe waxaan sidan uga hadlayaa oo moodis inaan Soomaali la hadlayo oromo la hadlayo oromo Soomaaliga taqaan hay ka hadlaysaa tanna war macnaagahoodii waa meesha maraya والله بان قف أورما يهرك أنا يجي يقولين وبالله أو الله بان خلي أورم بوفيا محاجة عمالي ده هستا تضبط أن عرضات كله في طبعا خلي قف أورما هلك أخوارتان أورم سنو هو استا أورم ورم الله يقدر يسيدك سونيك دولي شريمه ميان الله إنه خطري قطي أورما وسومالي أبو لورنشري أو waxa weeye aan meedhan dabaylka haday ka soo maran naftu ka baxayso oo faantada dameeraha cuni jiray wallahi qof oromo ay halka ugu jiray ma ودير oromo ay nacdashu wallahi baan tusaydu ku dhahay saara indhaha ay saarad ku qof oroma indhaha ay saarad oromo ha kula sheekaysto minilix iyo xayl salaase iyo mingiste iyo waxa gumaysan jiray odaygu soo u jeedaba islaantiisa gabadhiisa halka lagu kusan jiray muraade maamaade orom dhalay baa tahay Soomaha bal waxa eeg wuxuu soo qoriyaa Soomaali uu soo qori de luqad kale miyaa leedihiin oromo dhashabaatino idinka iyo hooyadiinba mingista hortiina ku fuuli jiray hooyadaaba hortaada mingista ku fuuli jiray askarta mingista fuuli jirtay ma damiir baa leedihiin iyo dadnimo magacaasay muraade maamaade blog baa kule orom ku dhalay dhashiisu
adiga hooyadaaba ora mingista idin fuuli jiray goorma dad noqoteen annaga sirtayadii qorigaygii barateen waxaad ogaateen in Soomaali isnacab tahay inaanu qabiil isu haysano annagii baad sukay soo marteen magacyo Soomaali bay sitaan Maxamed bay la baxaan oo Cabdullaahi bay la baxaan oo Bashiir bay la baxaan oo Liibaan bay la baxaan oo Warsamay la baxaan oo afkeena bay ku hadlayaan oo niman iyo naagayo oo sidii Soomaalida iska dhigayaan ka garanayn dadka ilaa markuu hadlaba qarmuunkiisa dareemaysa iyo uurkiisa iyo hadalkan uu jabinayo wallaahi baana hooyadood u soo gali karin beejkeenay hooyadood baan wallaahi soo gali karin boosaasana tan ku dhacdo waad arki doontaan oromo tan boosaasiya Hargeysa iyo Burca kaga dhacda waad arki doontaan Soomaaliya magaalo kasta oo aad aragtaan barnaamijkaana sheer garaya oo meel walba gaarsiiya oo kadabkooda hal la jaro oo iyaga iyo aabahoodba fuudka la cabsiyo awoogood dhakada laga naarabaan waaba dad qalato waa mid kale ciyaalkan yaryar ee Soomaaliya la waayo maartay waryaare eegay Soomaaliya ciyaal Soomaaliya oo la waayo maartay oo berbera iyo boosaaso iyo laascaanood iyo baran iyo dhahar iyo laga waayo Beledweyne iyo Jowhar iyo Marka iyo Kismaayo iyo Beledweyne inta u dhaxaysa laga waayo iyaga qasha oo cuna waa dad qalato oromadu waa dad qalato oo diin male islaamnimada way ku qaraabtaan 40 milyan ma aha waa been Soomaali galbeed inta ku nool baa oromo dhanka badan carba kaas qof oromo caawa halkaas soo galo inta Soomaali galbeed ku nool ayaa oromo oo dhanka badan ma sharmaaku me wallahi beelku xidhanaya ilaahay waxaan ugu ballan galay oromoy hadaanan kaadidina kalax ku shubin oo ilaahay yaab idin keenin ma haddaan ilaahay yaab idin keenin oo gumaysigiina aydan ku noqon iyo migistii dusheedii ka raran jiray Soomaali adeer xabashidii raran jirtay baa leefooda uga baqday oo dib uga fadhiisatay eegi waxa uu qoran kaluu huba biba af Soomaali uu ku hadlaya hooyada uu sheeg bulay kaluu biba huba waa uu qoran waa orm bal waxa Soomaaliya inagu dhex jira ka waran kaalay hooyadaadii kaalay orm ku dhacay ee Vladimirka dadnimo leedahay mingista hooyada ma hortaada kuma kufsadeen بدلوا كوي هذا وتشاتوس وضع داي يدل له هيسن جري oo la gumaysan jiray laakiin waxaan rabaa say boosaasiya Hargeysa ugu noolaan lahayn lug baa laga soo saaraya lug awal baa lugan jireen lug baa laga soo saaraya baan boosaasa ilaa Hargeysa ilaa wajaale inta u dhaxaysa day wada oromo noqon weydaan quri oo jigjigana laadleed kaga saari waayo waxba hay weydiin aniga shabaaku meeti ma ba arkay ma orom dhalay aruuray qashan waa dad qalato injineer Amirna waxa la leeyahay injineer Amirow bartaada ka sii wad karibaashka baan ku oo buufi oo meel allaani meeshaad ku aragtay umada Soomaaliyeed wax madii sheega wacyigelintaan u idin sheegno dhalinyarta Soomaaliyeed idin sheegaysa qaata meel allaali meeshaad oromo ku aragtaan waynaad buufsan karbaash waynaad doodo qabataan in allaale intii social media ku jirtay qabyaalada iyo qurunka iyo balaayada ka sheekeynaysa waxa leeyahay war maanta maalin qabyaalad laga sheekeeyo maaha maalinba meel bay taagan tahay maanta waxay taagan tahay hal gambeeno oromo kula jirnaa war dadka isku leeynin Leila Axmed Dool war dadka isku leeyin manin oromo ah ku qabso oromaata na dhaafnaya war gabdhaha xitaa waa guursadeen wallahi billahi tallaah sixir bay saa ugu la wareegeen gabdhii Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed oo udugeed iyo khalkhalkeed iyo qabshaxeeda yaabis orom ma bageeyay gabdhaha Soomaaliyeed ma bageeyo orom laakiin way falaan mid bay falaan war jabhad cusub baanu abaabuleynaa oo ka dagaal gashay geeyiga Soomaaliyeed oo oromo laysa jabhadaasna dhalinyarta Soomaaliyeed oo dhan kacdoonkan waa kacdoonka dhalinyarada Soomaaliyeed
odayaasha qabyaaladistayaasha xitaa waa laga takhalusaya markaanu arrintaa oromada meel soo saarno arrintaa oromada markaanu meel soo saarno odayaasha qabyaalista xitaa waa laga takhalusaya war aniga naag oromo ah iyo nin oromo ah iyo naag oromo qabto iyo nin naag oromo ah qaba aniga iguma jiray halkaan nin saara kowsar oromo guul baylka xiran adigana adna baylka xiradee maxaa faa'iiday baylkaad xiranaysaa diyamonda girs baylka xiro wallaahi tani waa oromo caadiya diyamonda gilgs baa ugu qoran naa baylka xiro adigana oromo dagaal waxaan ahay nagama dhaxaya blog baan saaray blog labadii naagood baa tuuray eegay shacabka Soomaaliyeed waxa la meel kasta joogtaan gacmaha isqabsada guul iyo gobonimo waxa inoo balana shacabka Soomaaliyeed oromo iyo xabashi iyo tigree iyo axmaar iyo ilma abasiiniya iyo sacuud iyo cid kasto cadow nugu ah dhagta dhiigeena u darno gacmaha isqabsano ballanteenu waa guul iyo gobonimo iyo inaan iska dhicino cadowga ummadda Soomaaliyeed soo weeraray ee wanaageena iyo walaaltinimadeena iyo sharafteena iyo karaamadeena aan doonay gudaha Soomaaliya halganka laga bilaabay aamin maxamuud xasan oromo buu soo qoriyay xabashi baylka xiro aduguna nacdal ku dhacday shimaal xiiqo gaatu baylka xiro naaya ayada xiiqaws afka ku hadlaysid baa naga leh xiiqo qaashu wiixi niic looma baanaadir iyo sheeka jilasan khayr iyo barakaan idinka tagaya habeen alla keeno life waa joogto barnaamijkani waa joogtaan kuri inta ummadda geyga Soomaaliyeed oromada laga saaray insha Allah bidilaahi karim khayr iyo barakaan idinka tagaya والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برنامجنا شهر قريب